waatay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa jaamac cabdiraxmaan faandhe haatana waxaanu idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay xasan maxamed macalin oo ka mid ah dhalinyarada daayarta ee wax ka barata jaamacadaha Puntland kaasi oo ka yimid deegaanada koonfur galbeed waxa uu ka warbixinayaa sababta uu doortay barashada siyaasadda oo uu sheegay inay ka dambayso inuu doonayo isbedel siyaasadeed inuu ku sameeyo deegaanadiisa koonfur galbeed sidoo kale waxa uu buugiisa jaamacadda ku diyaarinayaa haweenka Puntland iyo doorkooda siyaasadda magacaygu waa xasan maxamed macalin waxaan ku dhashay degmada Hudur ee gobolka Bakool taariikhdu markay ahayd 1996 waxbarashadeedii dugsigeygii hoose iyo dhexe waxaan ku soo qaatay magaalada Hudur halkan waxaan imaaday 2009 garowe waatahay waa xilli aad u fog xilliga Puntland aad timaaday maxaa kugu dhaliyay inaad Puntland timaaday wallahi horta xilligaas aan Puntland imaaday dadka qaar waxay u soo bixi jireen inay shaqo qabtaan laakiin xilligaas aniga aad baan u daajiraa laakiin dadkii waxaan arki jiray inta badan Soomaalida meesha joogto oo Puntland bari u soo baxayso saas darteedaan u soo baxay laakiin xilligaas waa qof iska daayar baan ahaa ma jiraan markii laakiin caqabado ku khasbayna Puntland timaadid ama wax ka baratid ama aad ka shaqaysid wallahi caqabadaha de waa iska jiri karaan qof walba laakiin aniga hadda caqabad gaar ah oo meesha iga soo kaxaysay ma jirin aan halkan ku soo aaday okay Puntland waa timaaday imaanshiyaha kadib maxaad kala kulantay Puntland wallahi Puntland markaan imaaday 2009kii wax caqabad kulay horta waa jiri kartaa qofka hadii hal mar waalidkiisa iyo ka soo tago caqabad waa la kulmaya oo badan meel aadan qofna ka garanayn hadaa tagto caqabad badan baa kala kulmaysaa laakiin aniga markaan halkaan imaaday waxaan ka bilaabay sanadkii u horeeyay waxaan bilaabay inaan ganacsi bilaabo sanadkii ugu horeeyay ganacsiga aan bilaabay sanad baan waday waa iska bedelay markii dambe waxaan bilaabay inaan harqaanki toos u bilaabo oo horfadiisina awal u lahaa oo haga marka aan joogayna toli jiray harqaanka wallahi intaan joogay Puntland wax kale kama shaqeyn harqaankaasaan ka shaqeynay sanadkii ugu horeeyay markii laga reebo kullay harqaanka wax badan baan ka qabtay kullay markii u horeeyay horta nafsadaadii baa ku maareynaysaa waa garan kartaa qofka markii meel tago oo waxa laga rabaa kira laga rabaa oo waxa laga rabaa isaga naftiskiisa nolol maalmeedkiisa u baahan yahay intaas oo dhan harqaankan ka maareynay okay dhanka waxbarashada waxa sheegtay inaad dugsi hoose dhexe aad ku soo dhigatay degmada Hudur ee gobolka Bakool ka waran marka Puntland timaaday wallahi aniga sida dadka qaar inta badan sameynayaan ma sameynin markaan halkaan imaaday waxbarashadeedii horey baan u watay haga markaan dugsi dhexe ugu soo baxay halkan waxaan ka bilaabay waxbarashadeedii dugsiga sare xilligaas waxa jiray college oo Dr. Ahmed College liiraado xilligaas waxa jiray dadka inta badan waxbarashada ka saaciidi jiray oo nidaami ahaa baa jiray kaasaan ku biiray 2016kii baan ka baxay Dr. Ahmed College dugsigayga sarana meeshaan ka qaatay haddana waxaan bilaabay 2017kii waxaan bilaabay jaamacadda Bariga Afrika kuliyadda Social Science-ka departmentiga Political Science and International Relations hadda saddex sano ay ahayd sanadkii u dambeeyay aan ku jira sanadkan aan dhameynaa waatahay kuliyadda siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah baad bilowday maxaa kugu dhaliyay inaad kuliyaddaas aad dooratid wallahi kuliyaddaas wax badan baa igu dhaliyay kullayba aniga waxaan arkay dhibaatooyin badan oo wadankeen wajahayo oo markaad fiirisid xagga siyaasadda maanta hadaad fiirisid dadka siyaasiyiinta aan hogaaminayo inta badan waxa arkaysa wadankii oo dhibaato ku jiro oo qof ummadii u damqanayso aan jirin dhibaatada ummadeena haysato markaan arkay dhibaatooyin badan oo gaar ahaan anaga waxaan ka soo jeednaa koonfur galbeed maanta dhibaatooyin badan baa haysta taasina waxaan u ahinayaa aniga inay tahay siyaasad-xumo siyaasiinteeda oo ii sheeg inta badan ummadoodii maamul wanaag tusi waayay marka waxaan rabaa inaan ummadayda wax u qabto insha Allah okay waa tahay marka waxa ii sheegtay inaad haata sanadka ugu dambeeyay jaamacadda ku jidid
maxaad ku diyaarisaa haatan buugga jaamacadda? wallaahi buugga jaamacadda waxaan ku diyaariyey dhibaatooyinka ka haysto haweenka ka qaybgalka siyaasadda puntland baan ka diyaarinaya hadda buugga aan ka qorayaa. haweenka koonfur galbeed mise haweenka puntland? haweenka puntland ilaan systemkaan noo siinayn hadda puntland baan joognaa. puntland marka koonfur galbeed markaad joogtid koonfur galbeed baa ka samaysan kartaa. hadda option waxaan siiyey puntland keliya inaad buugga ka qori kartid, dhibaatooyinka haysto caqabadaha haysto inaad ka qori kartid, saas darteedaan u qaatay puntland. waa tahay maxaa ku dooratay ciwaanka ah inaad buuggaaga jaamacadda aad ku difaacatid doorka siyaasadda ka qaybgalka haweenka puntland? wallaahi marka aad fiirisid haweenka soomaaliyeed guud ahaanba iyo gaar ahaan puntlandba siyaasadda waxaa moodaa inay hoogaha maaragtaa ay ka yaryihiin, caqabado badanna ay ka haystaan. markay soo galayaan waxaa arkaysaa in odayaashii inta badan haweenkii aan u ogolayn siyaasaddii, oo inta badan raggii baa soo galaya, weliba dhalinyaradii hataa waa ku yartay, dadkii waaweynaaba inta badan siyaasaddii haystaa. marka haweenka naftirkooda caqabadaha ka haysto siyaasadda inaan wax ka ogaado baan rabaa inaan wax ka qoro. okay, waa tahay xasan waxaa tahay nin dhalinyaraha ka shaqaysa xirfadda dawaarka, sidoo kalena puntland marka uu yimaaday waxbarashadiisii sii watay, bal ka waran caqabado ma la kulantay intaa shaqada iyo waxbarashada isku waday? wallaahi caqabado way iska jiraan, laakiin haddii la fiiriyo caqabada waxa ka muhiimsan inta aad wanaag aad gaaraysid baa ka fiican. kulley waa jiri kartaa. aniga hadda jaamacadda semesterkeedii waxaa inta badan buugaagtii markii laisku daro lacag 300 kor u dhaafayso wey. waa garan kartaa dawaarkan anigana gelan waxaan shaqeeyaa, dawaarkan ka shaqeeya, gelanna waxaan aadaa jaamacaddii. marka waa dareemi kartaa caqabadaha meesha ka jiri kara waqtigii aad ku shaqaynaysid. ilaan dadka macaamiisha naftirkooda waxay rabaan dharkooda markaa ka qabatid inaad muddo siisid oo u tashiday rabaan. qof mar imtixaan diyaarinayo, mar assignmentii qorayo, mar jaamacaddii u socdo gelan jaamacaddii aadayo, caqabadihiis waa dareemi kartaa oo wax badan laga rabo, oo kiro laga rabo, oo waalid wax ka rabo, oo saas ah. xasan waxaa jira dhalinyaro badan oo reer koonfur galbeed oo puntland ka shaqaysta, ayaga ma ku dhiirigelaysaa in iyagoo shaqaysanaya sidaada oo kale in ay wax bartaan? wallaahi intii karaankayga ah waan ku dhiirigeliyaa, laakiin qof walba horta wuxuu leeyahay choice buu leeyahay. qof doorashuu leeyahay. qof wuxuu is leeyahay ganacsigan horumar ka gaar, waxbarashada iska da. anna weligay kuma fikirin inaan ganacsigan laysii wado. waxbarashadiina weligay waan jeclaa, waagii aan yaraa iyo hadda waxbarashadaan jeclahay, laakiin waa ku dhiirigeliyaa. laakiin dadka inta badan ma qiimeeyaan waxbarashada. waa tahay marka muxuu yahay hamigaaga aad ka leedahay maadaama aad tahay arday batay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, muxuu yahay hamigaaga haatan aad rajaynaysa? insha allah hamigayga inaan insha allah ummadayda si fiican ugu adeegaan rajaynaya, insha allah meel sare ka gaaro insha allah. axmed sarki iyo mid ka mid a dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee wax ka barta jaamacadaha puntland, kaas oo ah arday buuggiisa ku eegaya doorka haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda.